Soo dhawaad saaxiibayaal, waxaan doonayaa in lacagtan kala baxo oo gaaraysa $7.12. Saa ujeedaan waxaan gelin doonaa qaybtan withdrawal-ka. Waxaan ku dhufan doonaa in la daawo withdrawal-ka markaad ku soo dhufato. Kabacdi meelo badan ayaa jirto, option badan. Waxaad taabsanayna waxay tahay ATM-kan kore ayaan lacagta la baxaynaa. Saa ujeedaan markaad taabto ATM-ka kabacdi waxaan gelinaa Gmail-ka, sababtoo ah mar walba waxaa loo baahan yahay Gmail-ka ATM-ka inaad ku isticmaasho. Waxaan gelinaa $7.12. Saa ujeedaan waxaa leeyahay withdrawal. Saa ujeedaan hadda way dhacday lacagtii oo successful ay noqotay. Saa ujeedaan pending yar ayuu galaa. Pending-kaas markuu ka baxo kadib wuxuu ii soo galayaa ATM-kayga. Saa ujeedaan hadda lacagtii way baxday. Saa ujeedaan marka wax yar ayaan u kaadinayaa. Kabacdina waxay soo gali doontaa waxay tahay ATM-ka akoonkayga ayay soo gali doontaa. Marka waan xaqiijinaynaa insha Allah la socdo. Marka xaqiijin ayaa wadaa. Saa ujeedaan marka saaxiibayaal lacagtii saa ujeedaan waxa pending ayaa ku jirtaa. Pending-ka yariiska kabacdi markii oo 2 minutes ay kasoo wareegato lacagta si toos ayay u soo gali doontaa. Hadda aan baxno oo aan lacagtii hadda saan ay kusoo dhacday. Saa ujeedaan ATM-ka way soo gashay. Okay, refresh ayaan leenahay. Saa ujeedaan hadda lacagtii way soo gashay. Haddaan ku tuso waa karaa waa $7.12 weeye. Haddii aan kor ka fiirino waa kan waa $7.38 waaye. Saa ujeedaan marka saaxiibayaal waa kaas. Maadaama lacagta ay noogu jirto ATM-ka waxaan rabaa inaan kala baxo oo waxaa noogu jirto lacagta waxay tahay $7.38. waxaan rabaa inaan ula baxo perfectly ilaa EVC insha Allah. Hadda waxaan taabsanayaa withdrawal-ka kabacdi waxaan taabsanayaa perfectly. Markaad taabsado kadib waxaan dooranayaa lacagta aan la baxayo oo ah $6 iyo waxaan la baxayaa 38 senti ayaan la baxayaa. Saa ujeedaan marka lacag ka goosanaa. Saa ujeedaan marka waa kaas saaxiibayaal. Saa ujeedaan kabacdi waxaan leeyahay request waan codsanayaa. Saa ujeedaan waxay qaadanaysaa loo dhahay 2 minutes ayay qaadanaysaa. Marka saaxiibayaal saa ujeedaan hadda waa kaas akoonkayga hore ay ugu save gareysan oo lacagta kula bixi jiray waxay soo gaaraysaa $5.91 ayay soo gaaraysaa. waxaan leeyahay submit ayaan leeyahay. Markaan submit aan dhaho kabacdi waa kan saa ujeedaan wax yar uu wareegsanaa adi process waxyaabahan maraysaa ma fahanteen. Marka iska dulqaata insha Allah ilaa inta ay kasoo galayso. Marka waa kaas marka lacagtii waa kaas hadda request ay noogu jirtaa. Haddana waxaa pending ayaa la soo qoraa fiirso. Pending-ka waxaa lacagtaada ku dhici doontaa bar ay sugaysaa. Markay saas tahay xaaladda meesha ay marayso marka waxaa loo baahan yahay in aad soo kiciso perfectigaaga si loo xaqiijiyo. Hadda waxaan galaynaa perfectiga ayaan ku dhufanaynaa si aan macnaha gudaha u galno. Saa ujeedaan waa ka perfectiga. Marka waxaan gelinayaa capture-kan 25 waa 5 kaas marka kabacdi waxaan gelinaynaa pin lagu soo dirayo Gmail-kii aad ku furatay perfectigii hore ama perfectigii kuu furan. Marka waa kana marka pin-kii waa kan aan ku dhufanaynaa. Marka waa ka pin-ka haddii aan copy aan soo dhahno hoos u soco wali waa kan 76 ka bilowdaa. Copy ayaan soo leeyahay. Copy markaan soo dhaho kabacdi waxaan imaanayaa perfectiga. Kabacdina waxaan ku leeyahay paste ayaan ku leeyahay. Saa ujeedaan paste markaan dhaho kabacdi meeshii aan u laabanayaa ATM-ka. hadda wuxuu ii soo qorayaa ma aqbashay ama aqbal confirm lacagtaada si aad u hesho. Waxaan leeyahay I have received to correct amount. Saa ujeedaan kabacdi waxaan leeyahay confirm. lacagtii waxaa la ii soo qorayaa successful ayaa la ii soo qorayaa wax la mid ah. Saa ujeedaan marka haddii aan fiiriyo
lacagtii way baxday saa u jeedaan marka waxaa fiiriyaa lacagtii inay baxday waa ka saa u jeedaan waxaa la soo qoray completed ayaa la soo qoray yani lacagta waa dhamaystirtay oo waa la baxday marka perfectiga waxay tahay waxay qaadanaysaa iyadana 2 minute ayay qaadanaysaa si lacagtaada ay kugu soo gaarto saa rajeynaya waa insha Allah marka saaxiibayaal aan xaqiijino lacagtii inay soo gaartay perfectiga aan gali doonaa insha Allah refresh ayaan leenahay saa u jeedaan marka waa kan lacagtii way soo gaartay waxay noqotay $5.94 3 senti ay hor noogu jirtay haddii $5.91 lagu daro waxay noqonaysaa $5.94 senti ayaa noqonaysaa marka saaxiibayaal waa kaas lacagta way soo gashay saa u jeedaan marka lacagtana waa really application aad kala bixi kartid dad badan waxaa jiro lacag application uu diidayaa dad ahaa jiro marka application lacag ma diidayo lacag waa kula bixi kartaa ilaa EVC marka waa kaas hadda waxaan guda gali doonaa qaabka aad ku keeni lahayd EVC-gaga maadaama perfect uu yaalo dad badan way yaqaanaan perfect si lacag looga soo bixiyo loo geeyo EVC-ga waxaan galeynaa application Tayo Exchange markaan galno kabacdi waxaan dooranaynaa meesha lacagta yani lacagta waxaan kasoo qaadan rabnaa perfect waxaan soo gelin doonaa Tayo kabacdina EVC okay perfect ayaan dooranay saa u jeedaan kabacdi meesha waxaan gelinayaa ID-gaaga yani akoonkaaga lacagta kala soo bixineed akoonkaaga lacagta aad kala soo bixineed hoosna waxaan gelinaysaa lacagta aad doonaysid inaad kala baxdo waxaan kala baxayaa $5.80 sababtoo waxaa laga yaabaa lacag badan inay jaranayaan shirkadda perfect money-ga lacag sentiyaal oo kale ah inay jaranayaan saa dareemaya marka meesha imaatid waxaad gelinaysaa ID-gaaga baasirku akhrin doona insha Allah marka saaxiibayaal waa kaas aad waxaan gelinayaa capture-ka waa kan capture-ka soo jeedaan kabacdi waxaan leeyahay preview payment ayaan leeyahay kabacdina waxaan leeyahay confirm ayaan leeyahay confirm markaan dhaho lacagteedu waa kaas hadda si toos ah ay ugu dhacday application-kii Tayo Exchange soo jeedaan marka hadda way fududahay inaad EVC aad geyso marka waxaad taabanaysaa lacag la bixid ayaa taabanaysaa kabacdina waxaad dooranaysaa EVC markaad doorato kadib waxaad EVC markaad doorato kabacdi waxaad gelinaysaa lacagta aad la bixi rabtid waa ka $5.80 marka waxaa la tusayaa lacagta ay jaran doonaa shirkadda yani shirkadda lacag bay jaranaysaa lacagta ay jaranayso soo jeedaan waxay ka jaranaysaa 58 senti waxaana ku soo dhacayso $5.22 marka saaxiibayaal waa kaas checking-ka yariiska kabacdi uu ka bixi doonaa waa kaas markuu ka baxo kabacdi lacagta si toos ay kugu soo dhici doontaa EVC-gaga insha Allah waxaan rajeynayaa inaad muuqaalka aad ka fahanteen insha Allah nuxurkiis aad ka bogateen insha Allah waxaan u malayn doonaa application-ka inaad aamin doontaan insha Allah asxaabay waxaan idin rajeyn doonaa khayr iyo nabadgelyo insha Allah.